السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيادة والسلامتهن دمانتينا وحان إذن سو دوينايا جنرالكينا عصب لما قعب حي افتينكا أمدا وهويغا أقونتا. فضلا لايك جراي فيديو غاني جاسي ولا الله جعل إن الكفاء إستان مادوينكا سيدا كمبيوتركا mobile application-ka iyo diiniga. fadlan dadku cusub tahayna subscribe inoo dheh. maanta mawduuciina ama waxaan ka hadli doonaa laba mawduuc aad iyo aad u muhiimsan. labadaas mawduucna waxay kala yihiin input device iyo keyboard bytes. waxa keyboardka ay u kala baxaan iyo waxyaalaha computerka suudgeliyo inay wax geliyaan ama wax walba device walba maalad walba computer wax geliyo ay lahayaa input device. maanta waxaan xooga saari doonaa labadaas mawduucan ka hadli doonaa. fadlan ka faa'iideysta la soco casho walbana aan soo dhigay. bismillaahi raxmaani raxiim. asxaabta soo dhawaada dhammaantiina waxaan idin leenahay soo dhawaada. maanta waxaan qaadan doonaa laba mawduuc oo aad iyo aad u muhiimsan. labadaas mawduuc waxay kala yihiin input device iyo keyboard bytes ayaan maanta xooga saari doonaa. soo dhawaada. waxaan idin kala gelinayaa maalmahani xooga mashquulkiina ayaa badnaa, sidaas awgeed cashay badan ma soo dhigin. marka insha allah maanta kadib si toos ah cashigada u socon doonaan. maanta cashikeena wuxuu ku saabsan yahay input device iyo keyboard bytes. waxaan gudaha u gali doonaa cashikeena. waxaan isla qaadan doonaa input device iyo keyboard. waa maxay keyboard iyo input device ayaan isla qaadan doonaa. aan ku bilaawnay input device. waa maxay input device? input device waxaa la lahayaa waa aalad walba computerka wax geliyo ayaa la lahayaa input device. input device-kana waxaa loo isticmaalayaa is used to transfer data. in xog lagu kala gudbiyo ayaa loo isticmaalayaa input device-yada intuu computer system si computer systemkiisa loo geliyo ayaa loo waxaa la isticmaalayaa input device. sidii gudaha loo geli lahaa waxaa la isticmaalayaa input device ayaa la isticmaalayaa. waxaan umleenahay inaad fahanteen. marka input device-yada way kala badi input device-yada aad ay u badan yihiin. number 1 waxaa ka ah keyboardka ayaa ka ah. keyboardka ayaa ka ah. bal aan googlaha aan booqano. sidii u eegno input device-yada aad ay u badan yihiin. marka aan eegno input device, waa kuwan input device. waxaa ka mid number 1 input device. number 1 waxaa ka ah waa keyboardka. maxaa yeelay keyboardka wuxuu qabtaa shaqada ugu muhiimsan. wuxuuna suudgelinayaa qoraalka texti aan qorno inay computer gudihiisa inuu galo. number 2 shayga ugu muhiimsan waxay tahay waa muuska. wuxuu suubinayaa inaad waxaad ku doodato. tusaale hadda waxaan isticmaalino kaasikan dhaqaaqaayo waxaa suudgelinaya muuska waaye. waxaa kale jirto trackball. trackball oo computer qaar ku yaala. waana sida touch bag oo kale weeye. trackballka waxaa la lahayaa midkan oo laptopka leh oo laptopka loo isticmaalayo. kood computerda waxaa loo kala qaybiyaa labo laptop iyo desktop. marka laptopka desktop wuxuu leeyahay mouse kaliya loo isticmaalayaa, touchpad ma leh. laakiin laptopka wuxuu leeyahay touchpad oo leeyahay. marka input device-da
kuwan ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah barcode reader ayaa ka mid ah. waxaa ka mid ah microphone ayaa ka mid ah. marka input device aad ay u faa'iido yihiin kuwaas ayaa ka mid ah. marka halkan ayaa ugu baxaya input device. mawduucin labaad wuxuu ku saabsan yahay keyboard parties, qaybaha uu ka kooban yahay keyboard. number 1 waxaa ka ah function keys. function keys waxaa ka bilaabanaya F1 ilaa F2 alif alaya function keys. number 2 edit keys. edit keyska waxaa ka mid ah insert, home, delete, indie, page up, page down ayaa ka mid ah. number 3 oo ah numeric keys oo loo soo gaabiyo number keys. it is 17 keys of right set of keyboard. wuxuu yaalaa qaybta midig ee keyboardka. qaybta midig keyboardka oo yaala midkan yaala waxaa lahayaa numeric keys ama number keys, waana tirooyin. number 4 waxaa ka mid ah special keys. special keysna waxaa ka mid ah escape, tab, caps lock, shift, alt, control, kuwaas backspace, kuwaas dhan waxaa la isku dhahayaa special keys. number 5 waxaa ka mid ah alpha numeric keys. alphana waxaa loo soo gaabiyaa alphabetis, numeric waxaa loo soo gaabiyaa number ayaa loo soo gaabiyaa. waxaa ka mid ah A to Z, waa ABC ilaa Z, iyo tirooyinka ah 0 ilaa 9 under symbol iyo calaamooyinkaas ku dhex jira waxaa lahayaa kuwaan ujeedaan waxaa lahayaa alpha numeric keys ama alphabetis numbers. waxaa laisku qabtay oo loo soo gaabsay alpha numeric keys. haddana waxaan booqan doonaa website-ka ayaa booqan doonaa sidii u sharaxno keys walba shaqada uu qabto sida aan u sharaxno. waxaan booqan doonaa insha Allah. hadda waxaan soo booqanay Chrome, soo booqanay waxaan qodaynaa what is keyboard, sidii warbixin ama xog dheeraad aan ugu ogaano. waxaan tagi doonaa website-kan ayaa booqan doonaa. is the one of primary input device. keyboardka wuxuu yahay waa aalada ugu muhiimsan oo input device-yada, oo midka ugu muhiimsan waa keyboardka. wuxuu yahay midka ugu muhiimsan maxaa yeelay wuxuu qabanaa shaqooyin oo ka mid tahay typewrite, inaad qoraalo ama text aad geliso, letter, number, symbol, waxaad inaad geliso aad isticmaalaysaa. waa shay ugu muhiimsan. maanta haddaad keyboardka si fiican aad u barato waxay ka dhigan tahay inaad computer aad taqaano. shayga ugu muhiimsan oo laptopka ama computerka la barto waa keyboardka. haddaad keyboardka aan si fiican u aqoonin waxaa ku dhiwayo isticmaalka computerka, ama inaad wax aad ku qorato ama inaad wax aad si dhaqsi ku diyaariso ayaa ku dhiwayo. marka keyboardka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu muhiimsan input device, waana mid koowaad ugu muhiimsan. marka function badan nooc badan aa jirto keyboardka, kuwaan jida waa noocyaal kala duwan. marka computerkana keyboardkana waxaa loo kala qaybiyaa labo nooc jirto, mid external iyo mid internal, mid gudaha iyo mid banaanka. mid computerka oo ku imaada, midna xawaaye si USB aan loo isticmaala. tusaale hadda disk laptop wuxuu leeyahay keyboard oo ku imaado, kaas gooni waa xalaa mid gudaha. mid dibadana waxaa lahayaa midkaan oo USB ama wireless ku shaqeeyo ama wired ku shaqeeyo, waa midka banaanka ah. waxaan isla qaadan doonaa case walba shaqada uu qabto ayaa si fiican u sharxi doonaa. number 1 waxaan soo sheegnay waa function case. waxaan sheegnay ilaa 5 qodob oo ah function case, edit case, numeric case, alphanumeric case, special case. aad sheegnay ilaa 6 qodob aad sheegnay. marka mid walba shaqada uu qabto ayaan isla qaadi doonaa. function case number 1 waxaa ah function case. function case-ka oo loo soo gaabiyo F
waxaa loo soo gaabiyaa f aa loo soo gaabiyaa function keys allaya waxaana ka bilaabanaa f1 ilaa f2 alif ayaa laisku dhahayaa qaybtan oo dhan waa waxaa lahayaa function keys waa f1 ilaa f2 alif waaye function keyska marka waa caawiyaal waxay is caawiyaan shifty alt iyo control ayay is caawiyaan function keyska qaybta kaleete number 2 wuxuu ahaa edit case waa qaybtani number 1 waxaa ka ah insert home delete indi page up iyo backspace waxaa lahayaa edit case waana 7 case waana case-keeda ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay oo aad loo isticmaalka badan yahay edit case-ka marka inside muxuu qabtaa inside waxaa loo isticmaalaa inaad wax soo geliso home muxuu qabtaa asina case-ka home muxuu qabtaa tusaale anagoo joogo tusaale hadda dhexdana joognaa waxaadna ko inaan aadno waxaa taawanaynaa home ataawanaynaa wuxuuna keenayaa meesha cashirka ugu bilaawanayo uuna keenayaa marka home shaqaas oo qabtaa marka home indi waa iska soo jeedaan tusaale hadda indi ataawana wuxuu geenayaa meesha hoos u dambeeya ayuu geenayaa indi wuxuu geeyay meesha ugu dambeyso ayuu geeyay marka labada shaqo ay qabtaan waa iska soo jeedaan home iyo indiga home indi waa iska soo jeedaan waxaan leenahay homeka iyo indi inaad fahanteen waa laba shaqo laba shay iska soo horjeeda midig iyo qaybta kor iyo qaybta hoose home waxaa la qaybta tusaale text tusaale waxaa qoray inaad text qoray waxaa waa inaad halkaan inaad tago u baahanahay waxaa taawanayaa home wuxuu geenayaa qaybta cashirka uu ka bilaawanayo ayuu geenayaa indi markaan dhahone wuxuu geenayaa qaybtaan midig ayuu geenayaa oo cashirka ugu dambeeyay ayuu geenayaa homeno delete iyo backspace waa laba case iska soo horjeeda delete wuxuu qabanayaa tusaale kaasaka markuu taagan yahay dhinac oo midig oo qaybta ugu dambeeyo qoraalka markuu taagan yahay waxaa la isticmaalayaa backspace si wax loo delete gareeyo waxaa la isticmaalayaa backspace markaad taabto dhinacan oo bidix inaad wax kasoo delete gareeyo waxaa isticmaalaysaa delete ay isticmaalaysaa marka wax ayuu qaybta bidix ay wax delete gareenayaa marka dhinaca midig aad taagantahay waxaa isticmaalaysaa backspace marka laba shaqo ayay kala qabtaan ama backgraph-ka qaybta ugu dambeeya markaad taagantahay oo indiga markaad taagantahay ayaa isticmaalaysaa backspace qaybta home markaad taagantahay waxaa isticmaalaysaa delete-ka ayaa isticmaalaysaa aanu gudubno qaybta kaleete oo ah numeric case qaybtaan allahayaa numeric case waana waxay ka kooban yihiin number iyo operationkani oo pluska iyo minuska iyo timeska ayuu ka kooban yahay numeric case-ka waxaana numeric case ama number case waa isku hal qaybtan allahayaa numeric case allahayaa maanta wax qoysid case walba wuxuu qabanaya markaad ogaato waxaa ku fudaanaya isticmaalka computerka marka sababta ugu soo celinaa waxay tahay inaad si fiican aad u fahantaan marka waxaa ku xig edit special case special case lambadan waxaa ka ah escape wuxuu qabanayaa tusaale computerka wax aan aqoon soo kacay waxaad qabanayaa escape oo loo soo gaabiyo ESC loo soo gaabiyo escape muxuu qabtaa waxaan soo sheegnay waa dib celin qayb kale ama to fogaan oo dheerna dhaqaaqdo waxaa isticmaalaysaa tab backspace waxaa isticmaalayaa fogaan markaad taabto waxaa isticmaalaysaa backspace logna waxaa u isticmaalaysaa sida sheegnayba in xuruufta lagu weyneysto kabislog wuxuu ka dhigaa xayfaha uu weyneeyaa tusaale kabislog aad taawanaya hadda kabislog uu daayan yahay marka kabislog qaybtan ay u jeedaa hal mar dhagaa siinaysaa hal mar aad taawanaysaa kabacdi si toos ah wax u qoran kartaa kabacdi xayfaha dhan wuxuu bedelayaa capital ayuu bedelayaa xayfaha dhan uu weyneynayaa marka saas waay waxaa ku xig shiftina sidaa sheegnay iyo alt iyo kan waxaa looga abid waxaa la window k waa
calaamada windowga waa wuxuu cadeynaya inaad window walba aad computerka ku isticmaali karto. waxaa la window key calaamadaasi am keeskaasi. window key wuxuu qabanayaa markaad rabto inaad start menu ka kacsato ayaa isticmaalaysaa window keyga. marka alt waa soo sheegnay wuxuu qabto control iyo alt waa caawiyaan, waxay caawiyaan function case-ka ay caawiyaan. marka case-yada ugu muhiimsan waa qaybtaasi special case-ka. qayb kale xigta waa alpha numeric case. alpha numeric xarfo xuruufo iyo tirooyin iyo symbolooyin iyo calaamooyin ay isku jiraan. tusaale calaamooyin jiraan marka kuwaas waxaa la isku dhahaa dhammaantooda waxaa la isku dhahaa alpha numeric case-ka. qaybtani buug kuma qorano oo waxaa lahayaa io case. waxaa lahayaa filaatani waxaa lahayaa io case oo afar filaayo waxaa lahayaa arrow case lahayaa. marka waxaan u maleynayaa inaad si fiican aad u fahanteen keyboardka qaybaha uu ka kooban yahay keyboardka. fadlan video hadaad daawatay cashir aad la socotay fadlan like gray. waxaan u maleynayaa wax badan aad ka fahanteen keyboardka. wixii su'aal ah ama wixii aad fahmayseen commentiga nawaya waka aad ay u mahadsantihiin. fadlan hadaad ku cusub tahay subscribe inoo dheh sidii aad u aragto cashir walba aan soo dhigno. marka waxaan idinka algelinayaa maalmahan xooga mashquulkeena ayaa badnaa. hadda cashiradeen si toos ay u bilaabmeen. marka hadda waxaa si toos u bilaabi doonaa qaybaha practicalka ah si toos u bilaabi doonaa maadaama aad keyboardka aad fahanteen. marka qofkii fahmi waayay isticmaalka keyboardka ama baatiska ama qaybaha koobaha keyboardka qofkii fahmi waayay shayga ugu muhiimsan computerka la barto asaasiga waa keyboardka. keyboardka si fiican aad u fahanto iyo touchpad iyo mouse si fiican aad u fahanto waxaa ku fududaana isticmaalka keyboardka. isticmaalka computerka ayaa ku